waxaa galabta daaha laga qaaday horyaalka 38 ee dalkeena Soomaaliya ka oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ciyaartoydii hore ee dalka iyo daawadayaal fara badan oo isaga kala yimid dhammaan gobolada iyo degmooyinka uu dalka ka kooban yahay. ugu horeyntii furitaanka tartanka ayaa waxaa ka hadlay xoghayaha xiriirka kubadda cagta dalkeena Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab iyo agaasimaha wasaaradda horumarinta iyo adeegga bulshada Awaas Sheekh Xadaad waxaana hadaladoodii ka mid ahaa wama santiin waxaan jeclahay intuusan furitaanka ka hor in aan laba kalmad siino agaasimaha wasaaradda Mudane Xadaad waxaa sharaf weyn noo ah in maanta aan bilaabayno oo aan furayno horyaalka Serie A oo aan muddo dheer garoon kan oo kala ah lagu ciyaarin oo maanta ilaahay maadiis ay tahay in aynu ku ciyaarayno garoon heer caalami ah taasi oo ay suurtagelisay wada shaqaynta wasaaradda gaar ahaan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo kaalin runtii bilad dahaba ka qaatay in uu garoonka sida maanta uu yahay uu ekaado aan weli sii magacaabo xogayaha xiriirka oo aan iri dhowr jeer waxaad mudan tahay inaan bilad dahaba ku keeno haddii rabbigu idmana waa u keenayna sharaf iyo biladba. ugu dambeyntii waxaa ku dhawaaqay in horyaalka 38aad uu furan yahay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta dalkeena Soomaaliya Cali Saciid Guuleed. waxaa maanta sharafna weyn noo ah in maanta maartay garoonka Stadium Banaadir waxaan ka rabnaa isboortiga waa dhiirigelin waa sacab waa wax maartay shacabka lagu soo jiidanayo waa wax lagu amaanay ciyaartooyda inay kor u qaadmato hadii la rabo ciyaarta waxaan dhiirigeliyo waa dadka u ah difoosaha eelka u ah marka saxaafadii iyo waxaan rabnaa kulli dhammaan iyo annagoo isku jirnay xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta in ciyaarta maanta hadal badan wax tari maayo ciyaartii waa noo furan tahay ciyaartii sanadka 2013 waa furan tahay ma sha Allah. furitaanka kadib ayaa waxaa bilaabatay ciyaar xiiso badneed oo dhaxmartay kooxaha Hegan iyo Gaadiidka kuwa oo nasiib u wada yeeshay in ay wada ciyaaraan kulanka ugu horeeya furitaanka horyaalka 38aad ee dalkeena Soomaaliya. daqiiqadii 14aad ayaa waxaa goolka garoonka furtay kooxda kubadda cagta Hegan waxaana u saxiixay Maxamed Cabdi Xayow. Hali Eber waxaa hoggaanka ku qabatay Hegan. daqiiqadii 25aad ayaa waxaa mar kale gool dhalisay kooxda kubadda cagta Hegan waxaana u saxiixay Axmed Cabdiwili Cismaan. waxaa lagu kala nastay qaybtii hore 2-Eber oo ay hoggaanka ku hayso kooxda kubadda cagta Hegan. qaybtii dambe markii la isku soo laabtay ayaa waxaa daqiiqadii 50aad gool dhalisay kooxda kubadda cagta Gaadiidka waxaana u saxiixay Cabdullaahi Axmed Maxamed oo lambarka 9aad u xirta kooxda kubadda cagta Gaadiidka. 20 daqiiqo kadib ayaa waxa ay Gaadiidka heshay goolkii barbara ahaa waxaana u saxiixay mar kale goolkiisii labaad ee ciyaarta Cabdullaahi Axmed Maxamed oo lambarka 9aad u xirta kooxdaasi. 2-2 ciyaarta oo maraysa 8 daqiiqana ay ka dhiman tahay waqtigii loogu talagalay ciyaarta ayaa waxaa goolka guusha heshay kooxda kubadda cagta Hegan waxaana u saxiixay Cismaan Yuusuf Cismaan. 3-2 waxa ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta Hegan. ciyaarta markii ay dhamaatay kadib ayaa waxaa ka hadlay macalinka kooxda kubadda cagta Hegan Axmed Cabdiraxmaan Cumar waxaana uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay guusha galabta ay kooxdiisa ka gaartay kooxda kubadda cagta Gaadiidka. salaanka bacdi runtii dareenkayga aad u fiican yahay waayo kooxdii mar ay soo baxdo tartan ay ka qaybgalayso waxay ku hamweynta inay ku guuleyso runtii dareenkayga aad u fiican yahay dadaalka bacdi guushiina Ilaahay dhanka kale waxaa ka hadlay ciyaartii galabta dhaxmartay kooxaha Hegan iyo Gaadiidka macalinka kooxda kubadda cagta Gaadiidka Cabdi Isaaq Maxamed Cabdi Kuus waxaana uu sheegay in galabta kooxdiisa ay u qalantay in ay ka adkaato kooxda kubadda cagta Hegan. markii hore waxaan halka ka salaamayaa tiimka qaranka gaar ahaan horyaalka qaybta isboortiga
waad aragtaan ciyaartay galabta ay soo bandhigtay kooxda gaadiidka waa ciyaar aan laga sakarin walow ay guusha halkeeda tahay waxaan dhihi karaa nasiibka ayaa laga heliyaa maana kubadna lagama badin kulamada dambe soo socda maxaa leeyahay insha allah ilaahay duuraa kulamada soo socda waxaan ku dadaalaynaa qaabka hadda dheelay in wax ka bedelno iyo wax ka fiican inaan soo bandhigi doono insha allah kulanka ugu soo horeey jimcaha soo socda ciyaaran ayaad arki doontaan isbedelka kooxda maray galabta kooxaha Hegan iyo gaadiidka ayaa waxa uu yahay kulankii ugu horeeyay ee lagu furo horyaalka 38aad ee dalkeena Soomaaliya waxaana kulankani kulanka xiga la ciyaari doonaa maalinta Axadda. Axmed Salaad Shiikhow, telefishinka qaranka, Muqdisho.